Somaliland الله وسياد نبدا سوغانو برواقة كسور Somaliland الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسد داوداش تلفزيون كقرنك سوماليلاند برنامج كان أيان كورورنا أركتدا iyo fikradaha ay ka qabaan muwaadiniinta reer Soomaaliland telefishinka madaxa bannaan ee Universal oo dawladda ay jaarka nahay ee Soomaaliya ay leedahay oo ku tuntay sharciyada iyo dastuurka u yaala Soomaaliland maadaama Soomaaliland lagu tiriyo dawladaha ugu xorriyad qowlsan saxaafadda in mas'uul ka mid ah mas'uuladii Soomaaliland soo maro heer agaasimo guud gaaray ayaan jecelaynaa fikradiisa weydiiyo iyo sida dastuurka iyo qawaaniinta Soomaaliland u yaala ay u dhowrayaan milgaha saxaafadda madaxa bannaan iyo saxaafadda madaxa bannaan inaanay ahayn in sharciyada dalka ku tuntaan. bismillaahir rahmaanir rahiim arrinka anigu waxaan u arkaa fikrad go'aanka uu qaatay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanku go'aan geesinimo leh oo wanaagsan oo go'aankii la qaadan jiray nimanka Universal waxay meel kaga dhaceen qarnimadeennii iyo milgihii saxaafadda labadaba way kaga dhaceen marka waxaan u arkaa talaabada dawladda Soomaaliland ka qaadatay telefishinka inay ka mamnuucdo ariga Soomaaliland go'aan raganimo leh oo geesinimo leh oo aad loo taageerayaan qaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii arintaasi waxaan u aragnaa faragelin qaawan oo ay nagu soo qaaday dawladda Soomaaliya TV-ga Universal waxaan ognahay in xarumo laga siiyay koonfurta Soomaaliya marka go'aanka uu qaadato dawladdu way ku saxsan tahay waliba waxaan maqlayay in la leeyahay apologize bixiya waxaan leenahay apologize yaan lagu xujeenin ha laga mamnuuco guud ahaan qeyga Soomaaliland waayo waa TV u soo weerar tagay sumcadda iyo qarannimada Soomaaliland inuu wax ka sheego marka marnaba ka yeelimayno waana dagaal qaawan dawladdana waxaan leenahay talaabo adag ka qaada sharcigana waafajiya. bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacayga yahay Caydiruus Idris Ibraahin kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda Hargeysa gaar ahaan kulliyadda economiga waxaan aad iyo aad uga damqaday dhibaatada ay TV-ga Universal ku hayo dalka maadaama oo TV-ga Universal sidaan barnaamij dawladda ku daawano wuxuu ka sheegay madaxweynaha dalka kaasoo lama taabtaan ku ah dalkeena madaxweynaha dalku maaha mid loo la dacaydeyn karo ay iyo aflagaadaba inaga mudan maadaama waa astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha qaranku wuxuu naga mudan yahay sharaf marka aan waxaan soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Mr. Cukuse talaabadu ka qaaday TV-ga Universal waxaan aad iyo aad ugu taageersanahay xilista la xiray maadaama TV-ga Universal markasta wuxuu soo daayay barnaamijyo ka soo horjeeda qadiyadda Soomaaliland TV-ga Universal waxaan u haysaa maaha TV dhexdhexaada waa TV buunbuuniya siyaasadda Soomaaliya marka aad iyo aad baan u taageersanahay wasiirka warfaafinta waxaan leeyahay TV-ga Universal yaama dib loo firinba maadaama dalkeeni iyo ummadeeni iyo qadiyadeeni wuxuuna ka talaabay madax banaanidii taasna waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliya aan walaalaanahay TV-ga Universal waa inuu ka noqdaa mid dhexa haddii uu Soomaaliland ka shaqeynayo laakiin hadduu TV dhexa noqon waayo daadeer Soomaaliland ka shaqeyn maayo dawladda xukuumadda way ku mahadsantay Universal ay ka xidhay TV-ga waa TV aad u dheeraynaya xukuumaddeena Soomaaliland na wax ka sheegay madaxweynaha qaaligaana wax ka sheegaya waan ku hambalyeynaya wasiirka warfaafinta xidhitaanka uu xidhay Universal dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland yaanay ka shaqayn waa niman cadow inagu ah lidina inagu ah qarannimadeena iyo wada jirnimadeena. bismillaahir rahmaanir rahiim Universal TV runaantii waxyaalo badan baan ku aragnay muddooyinkii horeba waxaan leeyahay Universal dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka saaridda ay ka saartay dalka waan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u leenahay marnaba yaan laga yeelin in mar labaad ay inagu soo noqdaan dalka dawladda jamhuuriyadda Soomaalilandna iyo gooniskusaati taageeduna waa muqaddas marnaba gortan ma gelayso gooniskusaatiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay dawladdu cid kastoo ka soo horjeesata jiritaanka iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay halka kaga haya cidda garan weydaana ka saara dalka qofka qarannimada Soomaaliland soo dhaweynayna waan soo dhaweynaynaa waanu jecelnahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. الرحمن الرحيم أنيقو مقاعي يوسف محمد سلاد عيرتيدا كبدا كوليغا جمهورية Soomaaliland waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa xukuumadda talaabadan ay ka qaaday TV-ga Universal kaasoo caadaystay inuu dacaayado been iyo saliyaraatoon aan lahayn inuu ka fadiyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland
qadiyadeeda iyo madax bannaanideeda iyo howlaheedaba isagoo oo muddooyinka ugu dambeysay taarget ka dhigtay astaanta qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan taasna waa wax aad iyo aad looga xumaado markaa waxaannu ku bogaadinaynaa kuna taageeraynaa xukuumaddu tallaabada ay ka qaaday taasoo caddaynaysa dee dagaalkii gacanta ayaynu soomaaliya ku kala baxnay markaa iminkana waxaa inoo bilaabmay dagaalkii miidhiyaha markaa waxaannu aad iyo aad u soo dhowaynaynaa inay tahay tallaabo weyn oo saxa in tv-ga universal totally xididada looga saaro jamhuuriyadda somalilan meel kastoo ka shaqeeyaba guud ahaan shacbiga reer somalilan meelaha aan lagu kulmo ee iskugu yimaadaan markaad tagto waxaad arkaysaa iyagoo hadal haya telefishinka universal oo aad ay uga xun yihiin habdhaqanka uu la soo baxay ee somalilan uu wax kaga sheegayo nin odaya macallina dad badan oo somalilan xu qabtayna ku soo tabcay oo waqacantiisa wax ku baray ayaan jecelay fikradda telefishinka universal oo qadiyadda somalilan meel adag ka taagan oo aad moodayno aflagaada iyo sharciyadii dalka ku tumanayo bal aragtida ku waajaan go'aanka xukuumadda somalilan ay telefishinka kaga mamnuucday inuu ka howlgalo somalilan bismillahi raxmaani raxiim run ahaantii markaad eegto dalku tashruuc buu leeyahay dastuur buu leeyahay qaran weeyaan waa ummadda loo jirta jiritaankeeda cid kastoo ka hor timaada dawladdu waxa ay xaq u leedahay oo ay u xil saarantahay ummadda ay xilkeeda uga qaatay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado ciddii kale wax dheeraada ku dartay sidaas in la eeg in wax naxariisa loo gelin wadadii ay lahayd la mariyo waayo waxa weeyaan ummaddan buu jiritaankeedii baabiinaya haddii sharciyadii uu ku gafay maxaa lagu gafay damaha macnu waxa weeyaan in sida ay tahay waajibaadkii uu lahaa laga qabsado xeerna la mariyo waajibkiisna la mariyo weli barnaamijyadii buu sii wadaayo haddaad miidiyaha la socoto barnaamijyo raqiisa oo lagu dacaydeynayo somalilan iyo dawladda iyo nidaamka bulshada reer somalilan masiirkooda ayuu sii wadaa iyaga maxaad leedahay taa laftirkeeda waxa weeyaan haddii uu ka waantoobi waayo shicibku iyo dawladda markaad eegto dawladda lagu sheegay waa shicibka laftooda waajib bay tahay inay wax ka qabtaan haddii ay taa uu ka tanaasuli waayo oo uu tallaabada sharcigaa qaadan waayo shicibka laftiisa u taalla inay indhaha dharbaaxa ka garftoona yidhahdaan waajib naguma waxaanaad nagu wadda waayo iyagii buu yiisaya quursanaya aan ahayn wax jira uu ka dhigaya marka dadnimadayda ka diidan aniguna ma ogoli walaa universal iyo wax la mida toona aragtideedu waxa weeyaan jiritaanka somalilan iyo go'itaankeeda iyo qarannimadeedu waa mid muqadisa mid laga maarmi karana maaha waa mid lagula talagalay wixii ka hor yimaadana in laga joojiyo waddanka xaq weeye taasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii somalilan foolxumo ku haya in laga qabto waa muqadis weeyaan wixii had iyo jeer dhibaato iyo falqarad iyo fidmo u keenayana waa dhibaatada ugu weyne fidmada ay ka bilaabato waxyaalaha beenta iyo raadxumada ku reebaysa weeyaan markaa waa in laga qabtaa somalilan weligeed way jiraysana waana muqadis kulley haddaanu nahay inagu dhallinyarta somalilan waxaanu leenahay nimankan haystaa university tv waxaanu leenahay adeer annaga goonigoosodkayga idinku kama hor iman kartaan cid kalena kama hor iman karto adeer annagu waxaan ka hadlaynaa xuduudihii lixdankii adeer annaga walaa annaga puntland maana la garab dhigi karin walaa cid kalena la garab dhigi karin markaa sidaa daraaddeed madaxda tv-ga universal tv waxaan leeyahay waayo tv baa tihiin bulshadaad u shaqaysaan mar kasta bulshada inaad ka hor timaadaan ma qurux badna inaad cid soo garbaysaanna ma qurux badna waxaa idiin qurux badan inaad idinku barnaamijyadiinna iyo mar kasta waxaa laidiin soo gudbiyo aad adeer shuruucdiinnu aad ku shaqaysaan haddaad dawlad soo garbinaysaan aad dawlad soo raacaysaanna dee aad caddaysataan aad tidhahdeen annagu dawlad baanu soconnaa annagu haddaanu nahay dhallinyarada somalilan kolley mar kastaba waxaanu adeer leenahay adeer tani way go'aysaa waanay goosanaysaa soomaad garan ninkii ka xunna isagunba adeer ku dhididi doona samaydaan garan kolley imankan hadda hanaqaadka dawladda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan aad baan ugu hambalyaynayaa hanaqaadku dalka ku sameeyey iyo horumarka ballaadhan kolley waynu arkaynaa dee dalku mar kastaba meelunbuu ka bilaabma adeer haddaan dadweynaha iyo shacbiyaddu aanay wax wada qabsaninna kolley horumar lama gaadho waxaan leeyahay dhallinyarta somalilanna waar aynu innagu wax qabsanno haddaynu innagu wax qabsan weynana eed waxbay nooma qabanayso madaxweynahan la yidhaahon maaha muxuu madaxweyne wax qaban waaya adeer dhallinyarta dalkaa wax qaban karta muwaadiniinta reer somalilan umay kala hadhin fikirka ay ka qabaan iyo sida ay u taageersan yihiin wasaaradda warfaafinta iyo wasiir cabdilaahi cukuse inay mamnuucaan ka howlgalka telefishinka universal kadib markii uu diyaariyey barnaamij dacaayad raqiis oo madaxweynaha iyo jiritaanka iyo shuruuciyadda dalkan u yaalla uu wax kaga sheegayo kamuu dayn weli wuu sii wadaa iyadoo ruqsaddii somalilan ka howlgalkeeda laga mamnuucay nin ka mid ah dadka reer somalilan ee aqoon-yahankeeda oo isagoo gaadhigiisii wata oo ku sugan bartamaha caasimadda hargeysa aan fikradda wax ka weydiinay isagoo ku bilaabay magaciisa waxa uu magacaygu waxa weeye injineer Saciid Xasan Cabdilaahi run ahaantii TV Universal wuxuu sameeyay waxaan loo dul qaadan karin
qarannimada Somaliland meel buu kaga dhacay waxaanan jecelahay in aanu dib uga shaqayn dalka Somaliland waxaan runtii jecelahay dacaayadaha raqiiska ah ee laga soo abaabulay koonfurta Soomaaliya hawlgal Soomaaliya ayuu fulinayaa waxaanan jecelahay wasiirka Cabdilaahi Cukuse waxa aan ku hambalyeynaya joojinta uu ka joojiyay TV Universal in dib ugu soo noqdana ma jeclay daawadeen waxaan bartanka kaga jirnaa waraysigii iyo waliba fikirka reer Somaliland madax salaadiin xildhibaano shakhsiyaad Somaliland saameyn ku leeyahay bulshada ra'yidkaaba aan ku weydiinay saameynta telefishinka Universal kaga soo horjeedo qadiyada Somaliland isagoo dacaayada raqiisa ka sameeya barnaamijyo uu ugu talagalay in Somaliland ku rogaadiyo suldaan kamida salaadiinta reer Somaliland isaga magaciisa ku bilaabi doonee ayaan jecelahay in weydiiyo aragtidiisa aan ku weydiino ku saabsan telefishinkaas bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Sultan Salmaan Boqor Cismaan Xasan aragtida telefishinkaas waa daawada anigu barnaamijyo dacaayadaha uu sameeyay oo madaxweynaha ku dacaayadeynayo waana wax aad looga xumaado in ay TV-gaas uu caadaystay inuu madaxda qaranka uu aflagaadeeyo runtii shacbiga reer Somaliland waa arkeen kartoonka sida xun maaragtay madaxweynaha loogu dacaayadeynayo dawladdeena go'aan bay ka gaadhado inay dalka ay ka mamnuucday bay go'aan bay soo saartay annaguna waa soo dhaweynaynaa go'aanka waana runtii waa dhaqan xun weeyaan oo miidiyaha ceeb ku ah inuu maaragtay dhaqan noocaas oo kale uu sameeyo halagu xaruntiisa ugu weyn waxay ku taallaa magaalada Muqdisho ku taallaa wariyaasha reer Somaliland u dhashay TV-ga u shaqeeya waxaan u soo jeedi lahaa inay ay iska casilaan oo aanay Somaliland sidii looga mamnuucay aanay si qarsoodiya wax warar iyo wax khabaar aanay uga tabinin annaguna waanu ka xunnahay meel la uga soo wada jeesanaa shacbiga Somaliland TV-ga waa TV ku caan baxay dacaayad fool xun oo anshax xumo ah oo miidiyahana ceeb ku ah dadkana iyo dalkana ceeb ku ah aadna waa uga xunnahay qofka haddaan xishoonahayn wuxuu doono ku hadli karaa miidiyuhuna wuxuu ku qurux badan yahay oo bini'aadamku ku qiimeeya dee inay barnaamij tayo leh oo fiican oo bini'aadamku daawado soo daayaan hadduuse qofku xishoo waayo dee maryuhu dhigan karaa oo suuq iska lugay karaa marka waxaan u arkayaa inuu dee isqaawis tahay midiya dee maryaha iska saaro isqaawiye inuu tahay dee asha xumaantiisu horta isagana way saamay doontaa Somaliland cadaawadda iyo heerku ka taagan yahay waanu ogaa doonaayo dadka ku shaqada leh iyo kuwa u shaqeeyaba waxa loo yeelan doonaa finiig dheer iyo feejigo iyo dagaal aan dhammaad lahayn baan dhex mari doona oo meel looga soo jeedsan doono qofka waxay noo gaari doontaa in qofka reer Somaliland ee report u dira uu mutaysto ciqaabta ugu xun inuu mutaysto bay gaari doontaa ha sii wado wuxuu ku helaa buu leeyahay waanu dhadhami doonaa cawaaqibkeeda arrintaa looga hadhi maaye tii horena laga hadhi maayo tamaanta laga hadhi ilaa heer maxkamada caalamiga la tiigsado in madaxweyne qaran inta la soo fadhiisiyo sawirkiisa loo geliyo la yiraahdo isagii baa hadlaaya dabadeedna hadalla maynara la yiraahdo isagii baa ku hadlaaya oo calankiina dusha loo saaro waa ceebtii ugu xumeyd iyo dhaqankii iyo anshaxumadii ugu xumeyd uu sameynaya marka waxaan uga digaynaa horta awalin dadka reer shacbiga reer Somaliland waa inay dareemaan in madaxweynahooda iyo sharaftooda iyo dalkooda uu ku ciyaarayo marka inanka yar reporterska halkan ka diraya warku waa inuu awalan horta isagu uu maartay uu ka joogsadaa oo islaaliya marka labaad mas'uuliyiinta TV-ga leh ee u bareeray inay sidaa xun u caytamaan ha ogaadaan inay reer Somaliland ay gacan bir ah wax ka qaban doonaan insha Allah taala waqtigeeda maxkamadana la tiigsan doono arrintaasna aanan yar iyo weyn iyo madax dhaqameed iyo mas'uul iyo wasiir iyo madaxweyne midna aanan laabi doonin ha ogaadaan oo ku abshiraan dacaayadda waxay ka helaan bay leeyihiin dhanka kale marka laga yimaado salaadiinta iyo waliba waxgaradka iyo bulshada kale ee Somaliland ee ka biyadiiday arrintaasi uu sameeyay TV-ga Universal waxayna aanu goobtan kula kulanay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland waa xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac isna fikradaasi ayuu ka dhiibanayaa fikirkiisa bismillaahir rahmaanir rahiim in fikrada adeer Sultan ku sheegay in dadkii ugu horeeyay waa aad iyo aad fikrad u xun waxaan leenahay ciidamadiisa aad bara waanu aragnay ciidanka xoogii waanu aragnay dayaradiisi waanu aragnay Somaliland waxba kama qaadin inaad maanta halka dacayd nagu soo jeeysay kamarada asay Somaliland ku dumi walaahina ku dumayn afkaagu ma isku xumaynaysaa waan sharaf waan ku sii qaadanaa marka waxaan leenahay ay waxba ku tarmayso madaxweynaha maalin walba asaa ornaysi iyo Somaliland asagu ceeynaysi iyo calankayga saa u jiidaysid ay siyaad bari ciidamadiisa waxba naga qaadmaysi France Somaliland ka qaadman loo xildhibaan maxaad soo jeedinaysaa shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland ee iyagu
ka turjumaya qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland nin waxay timaabkiisu iska xumeeyay qadiyadeennu waa sideeni Soomaaliland waa sideeni halkii baynu ka sii wadanaa waxaanu ka xunay shaqaalihii waxoogaa ka siin jiray ku shaqo beelay laakiin waxaan leenahay walaalayaal qadiyadeennu waa sidii halkii baynu ka wadanaa waxba inaga qaadi maayo in nin kartoon soo sameeyay waxba inaga qaadi maayo qadiyadii halkii baynu ka sii wadanaa inaku caaymayno kuwa caaymayno cid kale caaymayno meel baynu ku qaafiladu meel bay ku socotaa meel bay u arooraysaa aroorkeeni baynu wadanaa halkeeni baynu ku sii wadanaa وقعنا واتكيستا وهالبولين يراهو مركا وحن لنا ولا ليال رخيص كاه داونينا أنكم ما بداونة حاجة هو بلغة توشي وسير في information كانوا وحن لنا آديات بنقوم محنقنا طلبات وقاضي وحن لنا قوة ولقيد واقدي والفريزين والسعل ما ولقيد بان لنا حتى إما كماها ولا محكمة ولا غيره ولقيد يونيفرسال نقصنا نقول ما يسمون لنا هاي مركا وسير كانوا ونكتانين mid ka mid ah iyagu bulshooyinka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya Hargeysa ayaa isna fikirkiisa ka dhiibanaya sida Universal oo dacayada ugu wada Soomaaliland iyo fikirka uu ka qabo bismillaahir rahmaanir rahiim fikirka aan ka qabo TV-ga Universal waxa weeye fikirka ay ka qabto bulshooyinka reer Soomaaliland guud ahaan waxaan u arkaa inuu sameeyay meel ka dhac aan loo baahnayn Soomaaliland aan waxba yeelin laakiin isaga كحن وأيانو سانو أركو دوا TV عالمي isku waday oo ganacsi marka waxaan u arkaa inuu losgareeyay sumcaddii uu ku lahaa bulshada reer Somaliland Soomaaliya xukuma maada bakaylow adaaba ku xun yahay waxa weeyaan isaga ayaanay arintani naf u lahayn talaabada laga qaadayna aad iyo aad baan u waafaqsanahay 100% waan soo dhaweynayaa wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland talaabada uu ka qaaday iyo xayiraadda laga xayiray ruqsadii uu ku shaqeynayay dalka kaga howlgeliyay aad baan u soo dhaweynayaa waafaqsanahay shakhsiyaadka gobolada Somaliland ka soo hadla ee aanu arko in la connection gareeyay iyagana waxaan soo jeedin lahaa in ay fikradda gaadqaadka iska daayaan ee ay u tibinayaan TV-ga ku support gareynayaan khadda galay ama ay ku taageerayaan TV-ga khaladka weyn ka galay bulshada Somaliland oo ay qaataan qaraarka xukuumadoodu qaadatay iyo fikradda bulshooyinta wadankoodu ay ka qabaan marka absolutely waan ku qanacsanahay in saal loola dhaqmo ruqsadda laga qaado dibna aan loo siinin bismillaahir rahmaanir rahiim shacab ahaan waxaanu la qabnaa xukuumadayada xayiraadda lagu soo oogay Universal TV runtii Universal TV waxa uu sameeyo waxa looga xumaaday reer Somaliland oo dhamay ka xun yihiin waxa uu meel kaga dhacay qarannimadii Somaliland maamuuska koobaad ee qarankan waxa gacanta ku haya ama uu huwan waa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland been abuur rasmi ah bay ka sameeyeen kartoon bay ka sameeyeen aan u qalmin waxa ay sameeyeen isagoo madaxweynihii jaasaya madaxweynaha iyagu ma aha nin jaaska ciyaara ama meelaha ku dhaansa maaha arrintaas waa arrin gaf ah xayiraadaas oo kaliyana ma ahaanaysa mid ay ku ekaadaan xukuumadda Somaliland waa inay maxkamad caalami ah la tigsado waliba dalka Ingiriiska uu ka furan yahay dawladda waxaanu u soo jeedinaynaa in ay garyaqaan qabsadaan dalka Ingiriiska ka qabsadaan si dacwad loogu ogo janankaasi waanaanu ka xunnahay mana aqbalayno waanaanu ku taageersanay dawladdeeda arrintaas daawadayaal xayiraadda xukuumadda Somaliland ay ku soo rogtay telefishinka Universal oo dawladda Soomaaliya laga leeyahay warqadan gacanteeda ku jirta waa tii ay saxeen sanadkii 2010 bishii 19 waa tii dib loogu soo celiyay xayiraaddii ay Somaliland telefishinka saartay in Somaliland ka howlgalo waxa uu ku kacay ka soo horjeedka jiritaanka qadiyadda Somaliland oo sanadkii 1998 May ee Somaliland magaalada Burco shir lagu qabtay ay Somaliland ku goosatay dalkan dad badan baa u soo dhintay hanti badan baa ku burburtay ummad badan ayaa ku weyday dad ay aad u jeclaayeen oo qiimo badan ku lahaa telefishin shakhsiyaad dawlad iyo dadka fikradda Somaliland ka soo horjeedaba bahda telefishinka qaranka xukuumad bulsho dhammaan ummadda reer Somaliland oo isku duuban waxay u sheegaysaa inaan jiritaanka iyo madax bannaanida Somaliland cidi aanay hor istaagi karin barnaamijkan aan ra'yiga dadweynaha ku gureynay fikradda ay ka qabaan
xayiraadda iyo joojinta uu telefishinka universal ka mamnuucay wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo ku hadlayay afka xukuumadda somalilan waa mid ay soo wada dhoweeyeen xildhibaano dhalinyaro aqoon-yahan arday jaamacadeed iyo bulshada somalilan oo isku duuban barnaamijkan ayaanu ku gorfaynaynaa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa dhinaca sawirqaadida axmed qalinlah habaynta iskudubaridka barnaamijkan cali ismaaciil jarafle maxamed caqli hadi iyo anigoo ridwaan caydiid ismaaciil saleebaan haybalaambad iyo howlwadeenada telefishinka qaranka somalilan oo idinku dhaafaya jiritaanka somalilan waa muqadis cid kastoo reer somalilan waa inay ka qayb qaadataa horumarka somalilan ka socda iyo madax bannaanida dawladda intaynu ku kulmayno barnaamijkan oo kale waxaan idinku dhaafaynaa ka qayb qaata dhismaha iyo horumarka somalilan ka socda meel kasta aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barwaaqa ku soor somalilan